الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلهي cabsidiisu waxaa qofka adduunyadana uu ku liibaano ridaha ilaahay ku gaaro, albaabada khayrkana loogu furo, fitankana lagaga ilaaliyo, aakhirana waa waxa qabriga iyo qiyaamo iyo janno iyo naarba lagu badbaado, oo cabsida ilaahay unbaa lagu badbaadi karaa oo camal iyo qowl iyo qalbiba yeelata. cabsida ilaahay allah inoo fududeeyo. khudbadana waxay ku saabsan tahay rabaa inaan wax ka ilaahdo maalmahan warbaahintii iyo fadhi ku dirirkeenna iyo hadalhayntu gabdhaa la kufsaday baa ugu badnayd. warkii intaan aqriyey een dhegaystay in badan ma wada dhegaysan kartid, laakiin in badan oon dhegaystayna falkaa in la cambaareeyo oo la dhaleeceeyo wax dhaafsan oo badani ma jirin. nin magaalo dhaleeceeya, nin deegaan dhaleeceeya, nin dad gaara dhaleeceeya iyo nin qolo cambaareeyaba, warka cambaarayntuna waa calaacal nuxurkii waay. warka marka la isku soo ururiyo waxbaa la ceebeeyey iyo calaacal weeye, laakiin wax badan ma arag oo ka hadlaya waxaan keenay si loogu gudbo in wax laga qabto. ilaahay qur-aanka wuxuu inagu baray noloshu waxa ugu fiicani hadbaad si ilaahay yidhaahda wey. qur-aanka iyo diinta haddii la raacana nolosha hadba sida ugu nadiifsan ee ugu wanaagsan sharaf iyo noolaansho iyadaa laga helaa. markii la dayacana dadku nin walba intuu dayacaa dabkiisu soo gaaraa. waxa yaalaay waa bilow ee dhammaad maaha. wax meel dheer ka yimidna ma ahee midho aan beerannay oon goosanayna waay. ninna qori uu jabiyo qarjaftiisa kama naxay soomaalidu tiraahdaa. haddaad geed qodaxa beerato midho qabow lama goosto. haddaad dab shidatoo dab hareerahaaga ka shidana qabow iyo dhaxan dabayl qabow lagama sugo. dabkii aynu shidnay iyo dacartii aynu beernay baan kuleylkeeda iyo kharaarkeeda goosanaynaaye wax meel fog inooga yimid ma aha. wax innagu mujtamaceennan muslimkaa guud ahaan, gaar ahaan mujtamaca soomaalidu wixii iyagu ay beereen bay goosanayaan. bini aadamku ilaahay markuu abuuray dhowr baahiyood buu ku abuuray. baahi waa baahida ay cuntadii iyo cabbitaanka u qabaan. cunnadii iyo cabbitaankii waa la tilmaamayoo risiqa xalaashaas ay ku raadsan lahaayeen jidkeedaa loo tilmaamay. markay durbe inay taajiraan dariiq xaaraana ku raadiyaan noqotayna dhib iyo balaayo badan bay kala kulmeen. intii ku baaba'day markaan midhahoodii intaan soo qaadannay beerannayna waxay goosteen oo kale aan goosannay. waayihii hore waxaan soo qaadannay warbaahinteennu oo telefishinadana laga sii dayn jiray, buug ahaanna loo aqrinayey filimaanta tuugada iyo dhaca iyo boobka iyo sida wax loo dhaco. markii filimaantii adduunka lagu sii daayey tuugadii baa badatay. isagii baa noqday macallin laga barto sida wax loo dhaco, sida wax loo jabsado, sida loo raadgato. markaad wax jabsato adana raadkaaga loo qariyo. qofkii ku dabagala sida laysaga celiyo. waxay noqdeen musalsalaad iyo filimaanta xana ah oo inta cashiro laga soo barto suuqa iyo ganacsiga iyo dukaamadii iyo dalka lagu fuliyay noqdeen. tuugadii baa badatay. niman kaarta badan baa soo baxay. guruubyaa isu urursaday. dhacu waa ka farabatay. hadda waxaa ilaahay kaloo baahi bini aadamka ku abuuray dareenka shahwada ah. dariiq saxoo guur xalaalo lagu gutana waa layna faray. dadka ha loo fududeeyana waa la yidhi. ciddii ay awoodi waayana ilaahayna ha ka cabsado. haddii kulaylka shahwadu ku batana ha soomaa la yidhi oo jirkiisu dhacaanka iyo intuu ka yaraado soon ku dadaalo karkii badnaa ha isaga jabiyo. waxaan intaa ahayn waxaa la yidhi sulta iyo dawladi ciddii xarigga goosata ha madax jabiso.
intaa kadib baa ilaahay waxaa inoo sheegay bini aadamku shahwadu way ku weynta dareenka uu cunnada iyo cabitaanka u qabo marar badan waxaa ka badan dareenka shahwada uu qabo saan munaasabaad kale ku sheegay waxaad ku garan haddii masaajidka iyo garoonku buuxo oo hadalku dheeraado oo in hurdooto in telefoon ku mashquulo inuu cajiso oo hahamsado miduu mid la sheekaysto hadday sheekadii xagga rag iyo dumar iyo xiriirkood u leexato dhammaan waa la soo wey kii hurda waa toosayaa kii wax ku mashquulsanaana waa soo jeedsanayaa dhammaan dareenkoodu hal mar buu soo laaban xataa kii murugaysnaaye caraysnaa isagoo qoslay oo dhoolla caddayn baad arki waxay tilmaamaysaa dareenka ay ku leedahay ee rabbi ku abuuray subxaanahu wa tacaala xaaladdii sidaa ahayd baa waxaa laynagu yidhi guurkii ha la qaaliyeeyo yaraanna yaan lagu guursanin yaraantu waa xilligay ugu badan tahay shahwadu walidaalika xaaraamta zinada lagu dhaco waa yeelku waa ka dembi badan yahay da'yar zina ku dhacday maxaa yeelay da'yarta wax dareenoo ka xoog badan oo riixii kalaa jira waa yeel iyagu sooba gaabiyey oo dhacaankiiba yaraaday xumaan fara badan unbaa riixaysee dareen xoog badan oo riixaya aan jirin wax kaa xoog badan oo ku riixaya iyo waxaan kaa xoog badnaynood adu jiidaysana waa kala dembi badan yihiin yaraantii waxaa la yidhi xilligay xoogga badnayd yaan la guursan guurkiina waxaa la yidhi ha la adkeeyo kharash badan iyo shuruud badan ha lagu xidho shahwadu waa duufaan biyoa wey waa la leexiyaaye lama xidho biyaha haddaad xirto iyagaa meel kala jabsan derbiyadana dumin duufaankii baa la yidhi ha la xidho marka la xidhayna dariiqay jabsan lahayd baa loo sallaxay warbaahintii oo hadda ka baxday dawlad gacanteed oo sharikadiyo mu'asasado tiiviyo furtay mar ahaan jirtee ka soo tagtay oo qof walbana fidinayo qaabilayana oo bahal yaroo telefoona nin walba gacanta ugu jira wuxuu raba ka fidinayo sawirkuu rabana gudbinayo videoguu rabana dhigayo kii la dhigana isaga qof ugu soo gelayoon cidna marti uga ahayn da'yartiina gacanta ku wada dhigeen dareenkooduna boqolka joogay baa waxa ugu badan ee baraha social mediaha la yidhaahdi iyo bulshadu ku xiriirtahay waxa ugu badan ee la soo dhigo iyo waxa ugu badan ee la fiiriyo iyo waxa ugu badan ee la commenti gareeyo waa rag iyo dumar wax ka dhexeeya sawir qaawan video qaawan qolyo wax samaynaya iyo website-yo wixiiba lagu practice garaynayo kanna waa la xiray derbigu jabsanayana waa loo duleeliyey waxaa ummaddii ku jira haddaba qolyo waxaa ka shaqeeyo ilaahay tilmaamay hadda ka hor markii qisadii ifkiga ee caasho lagu been abuurtay laga sheekaynayey baa ilahay wuxuu ku daray ina aladiina yuxibbuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu kuwaan alla ka cabsina lahayn akhlaaq iyo dhaqan fiicanna aan lahayn ummaddanna bale iyo xumo la doonaya baa laga hadloo ina aladiina yuxibbuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantan foosha xun inay ummadda ku baahda jecel cadaab bay aakhara agtira ay ku leeyihiin haddaba dad waxaa jira ummadda ku dhex jira oo waxaa in la baahiyo jecel baa jira daawashadeeda commentigaraynteeda samaynteeda qaybinteeda hadalhaynteeda kuwa jecel baa jira si ay dhagahana caadi ugu noqoto indhahana caadi ugu noqoto dhaqankana caadi ugu noqoto maxay tahay ujeeddada ka dambaysa jidkii alleh in laga leexday doonayaan wayuriidu aladiina yattabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima leexasho weyn inaad leexataan bay rabaan kuwaa shahwada raacaya kooxdii ummadda muslimkaa ku dhex jirtay waxaa kaashaday albaabkii la xiray iyo iimaankii oo daciifay iimaanku hadduu daciifo waa alla ka cabsiga qalbigu daciifo ishu ilaahay inuu la xisaabtamaya xasuusteedii daciifto gacantu waxay qoraysa in malaa'ig qorayso oo lala xisaabtamaya daciifo carabkan hadlayaa iyo dikrigii ilaahay ku daciifo meesha kaalmadii ilaahay iyo malagii waa ka yaraanaya shaydaan baa wehel iyo lamaano noqonaya shaydaan muu malaynaysaa diin la ilaaliyo iyo sama iyo akhlaaq wanaagsan inuu ku talin muu malaynaysaa waman yacshu can dikri araxmaani dikrigii iyo xasuusta ilaahay qofkii ka jeedsadaayey nuqayid lahu shayطaanan shaydaan baan u diyaarinaynaa fahuwa lahu qariinun isagaa lamaaniya saaxiib u ah shaydaan inuu lamaaniya saaxiib u noqday
ilaahay xasuustiisii iyo cabsidiisii ku yaraatay dariiqii xalaasha ee shahwada laga soo xiray isagoo dabkiisa shahwadu meel kulul marayo kii xumahana loo soo bandhigoo bannaanka loo soo dhigay baa filimaantii reer galbeedka iyo wixii xumaayay samaynayeen waa horey gabdhahooda wada kufsadeen oo caadi ka noqotay gabadhiisa xataa intuu meel ku xiro inuu ka ilmo dhalo inuu gabadhiisa kufsadaay dadka galbeedka jooga waraysta waa naadir maalin warbaahinta aynan ku qornayn nin gabadhiisa kufsaday ama wiil walaashii kufsaday galbeedku waa naadir caadi bay ka noqotay nabiguna hore wuxuu inoo yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci ummadihii idinka horreeye oo looga jeeday yahuud iyo nasaara jidkoodaa taaka taako iyo dhudhudhudhu u raaci daasaan riwaayad ba waxay ku dareen hadday dhacdo iyaga mid ka mida hooyadii inuu fara xumeeyo kuwa idinkaidin ka mid ah hooyadeed fara xumayn doona markii filimaantii tuugadaha aan ka soo qaadanay tuugada aynugu badatay filimaantii jinsiga ahaa ee rag iyo dumar ee xishood la'aanta iyo akhlaaq la'aanta ahaa markaynu soo wada guurinay wada boosti garaynay oo wada daawannay oo la wada sheergareeyey oo la wada kumanti gareeyeyna wakaa waxaa dhacaya mirihii baan goosanaynaa dacartaan beerannaynu daaqaynaa waxaani iskama imanin habeen iyo maalinna dadka kuma dhalan intaa waxaa u dheer waalidkii iyo goobihii waxbarashada ee da'yarta waa jahayn jiray garashadooda iyo garaadkooda kubcin jiray oo kor u qaadi jiray waxa xun ka waanin jiray waxa wanaagsan iyo mustaqbalkooda u sheegi jirayna xilkii iyo mas-uuliyaddoodii bay gabeen xil iyo mas-uuliyad baan gabnay amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar baa yaraaday xaafadaha la tuban yahay khayr laysma xasuusinayo suuqaa jidkaa la marayaa jirdiilooyinkaa la fadhiyaa ilaahay aan ka cabsanna lama xasuusto dukaamada iyo ganacsigaa la dhex hordayaa shirar iyo qabaa'il iyo siyaasad baa loo dhex yaacayaa wax ilaahay isxasuusinaya oo cabsidii ilaahay da'yar iyo dad kale garoomaa ciyaaro la tegayaa alla isxasuusintii baa yaraatay iimaankii iyo taqwadii iyo dikrigii qalbigii wuu daciifay waalidkii iyo hay-adihii waxbarashadu xilkoodii xasuusinta iyo tarbiyayntii iyo ka warqabkay gabeen xakamayntii dawlad iyo xogta ay lahaan jirtay baa faraha ka baxdo nin walba gacantay u gashay jidkii xalaasha ahaabaa la xiray oo la soo adkeeyey wixii xumaan iyo filimaantoodiina waynu isu gudbinay inaan cabaadno oon qaylinno oon calaacalaaye gar iyo garawsho ma laha innagu inaan beerno wixii soo baxayna ka cabaadno innagu inaan fidinno maxay natiijada u dhashayna aan dhahno innagu ubadkii iyo ilmihii inaan dayacno kadibna maxay waxaa u sameeyeen aan dhahnaaye iyadoo ay khalad tahay laakiin garawshi iyo gar ku yeelan mayno haddii xilkeenna kaalin walba ciddii lah gudan lahayd wixii dhacaayay wuu yaraan lahaa wax yaryaroo dhacoo naadir ahoo ama qof la dila ama xaalado dhacana aadamahana weligood way jirayo wayna jiri doonaan laakiin waxaan maxaa keenay dacwadii iyo khayrkii iyo isxasuusintii baynu yaraynay waxaan maxaa keenay waxbarashadii iyo waalidkii baa xilkoodii gabay waxaan maxaa keenay dawlad iyo maamul dadka xakamayn lahayd ama ciddii samaysay cidbin lahayd baa gacanteeda ka baxday oo waxaa la yidhi xorriyaadkay ku jirtaa waxaan maxaa keenay innagu waxaan qurunka een telefoonnadii isugu wada dirayno baa dadkii dareenkoodii iyo waxalba kiciyey dariiqiina u furay maxaa keenay kii xalaasha ahaa baan xidhnoon qaaliyaynay natiijadu waxaan maxaa keenay fa bimaa kasabat aydiikum waay waxaynoo kasbannay waa ilaahina subxaanahu wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid inaan wax ka duuna sooma rabno wax ka bedella sooma doonayno dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ummadda haddii waxaa in wax laga qabto la rabo waxa keenay inaan wax ka bedelo wey ilaahay ummad kama bedela xaaladay ahayd ilaa iyaga isbedelka uu ka yimaado ilaa inagu tarbiyadii aan soo xakamayno ilaa dariiqii xalaashaha aan fududayno ilaa da'yarteennii iyo tarbiyadii aan ka warqabno ilaa dacwadii iyo diintii dib aan ugu gargaarnaayey waxaas iyo wax ka xun baan sugaynaa waxaan gacmaheennu inagu dayacnay inaan dad kale ku eedin midho xunu beerannayna dacarta inoo baxday inaan dad kale eedaynin waxba reer galbeedna yaan la eedaynin waxa soomaaliga lagu baahiyey
innagun baa baahinay ama soomaali muslin ahaw ama soomaali gaala ahaw ama mid fiican noqo oo si khalada uga dhacday ama ku xumaatadaa ku raaxaysanoo yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu noqo shaydaanka ka adeegayna dee shaydaantan iyo aadam baanan inuuna wacdiyo wanaag nagula taliyana aynaan kaba sugayninoo ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduu caduwan baa layna yidhi haddaanan qariin iyo saaxiib ka dhigannaaye dee waxun inoo horseedo wixii laynooga digoon inagu isdayacnay wey ilaahay aynu ka cabsanno dadkeenna iyo ubadkeenna aan ka warqabno waxaan aan fidinayna iyo xumaatadan la qaybinaye warbaahinta iyo telefoonnada aan ka dayno ama duqay ahaada ama daayar ahaada ama rag ahaada ama dumar ahaada ilaahay ka cabsada dadka intii shahwada lagu kiciyo dadkiina la hor wado maxaad u derderteen laleeyahay waxaan dembiga la wada aan ka dayno dumarkii qaawanaantii ha iska daayaan qaawanaantan la qaybinaya ha la daayo dumaradan iyo sawiradan qaawanaya waxa xunee laysu qaybinaya ha laga daayo waxa iyo wax ka xun bayna dhexalshiin markaan filimaantoodii qaadanayna falkoodii baynu ku dareennaayo hadda aynu wadnaa ilahi subxana wa tacala ummaddan khayrka allah ku soo dabaalo inta samaha wadana allaha garab siiyo innagana iimaanka iyo towbada allahayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma inaa nasaluka ridaaka waljanna wanacuudu bika min sakhatika wmin annaar اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر